markaa saddex gabdhood waa sheekadu sidaan idinku sheegay u dhacday saddex gabdhood oo maar doonasho maar soo gurtay ayaanu ka hornimiyo mid ugu horeysay aqalkoodii iskaga soo baxnado na warwaraabiyo la kafkaftaniyo gabdhihii way iyo namadii way isa salaameen aniga markaa waxa iga dhaadhacsanayd waxa hadii de Waysada ka jabashay Madiina waa la joogaa biyuhu iska yariin mabda hadii qof dumar day istaabataan oo jaanib de Waysada waa ka jabashay markaa gabadh magaalo gabdhihi ku jirto ma garanaysaa salaan gacantii igu soo taagtay oo dabeedna waxa ku yiri waan waysa qabaynaade oo halkaasan ka salaam inta hadal kaftana oo aad iyo aad markaas meesha laba igu tidho waxay tiri inta gacanta saa isu qabatay wax reer baadiya oo salaanta qiimaheeda ba garanay anaga gacantayda ku soo taagnay wali waa xusuusna waxaan yaraanta la ilaawin baa jira arintii la qosqosliyo la foortay anigiina oo dabeedna waxaan idin markaa ma garanaysaa xoogaa baan isku dayday jiray inaan laba saddex kelmood oo gabadha tuuro abahay qasado yiri adoo weynaadan mooyee intuu wax iga dhigdhigaystay markaasan gabadhi saddex kelmood ku tuuray anigoo u sheegay in gacantaada iyo hadee beedankeeda la salaantaada iyo Waysada la iga roontaa gabadhi waa u jawaabay saddex kelmood oo aad bariga loogu caanamaali jiray baan idhiyo waxaan idhiina yahay salaanta iyo warkaad iga su'aalayso sadcaal kuma maqnayn iyo ilaa sahankii dooloode sabad iyo duleedada tan sugo ku raacay salaadii Allah iga roon saxaabadaadaasi sunnihi iyo wardiga hayga tabin suufi baan ahay subhanallahi alazim markaas uu iska sii tasbiixsabay arintii aad iyo aad baa loogu qoslay intaas aan barigaas kaga caanamaali jiray yara kaftankaas ay ahayd reer miyiga ka dhacday